xataa waxay marka ugu gowaabiyeen wax qurux badan dadkan oo soo bandhigo 7 bilood laba cishan xirna 2 biro ay raacday 7 bilood 2 biro xirna isjil aad maxaa waaye sataagusa waa ka haystaa hay raadi ka banaaday maxaa ka qaldan waa wiil caan ku ah ku sameynta barangiyada wadooyinka iyo fagaaraha waaweyn ee caasimadda Muqdisho isaga iyo tiimkiisa ayaa si maalinle ah waxa ay dadka ku xiran koontadooda baraha bulshada ay ugu soo gudbiyaan muuqaalo gaagaaban oo ay madadaalo ugu badan tahay fani ugu talagalay oo bilad iyo baaquli mar walba ay filinkaas ku matalayaan dib wax qasad leh wax inay muddo waxa uu soo wadaba waxa baaquli boy xabsiga dhigay laamaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya kaasi oo xabsiga ku soo qaatay muddo 7 bil ah haddaba waxaan weydiiyay sababta loo xiray iyo inay la xiriirto xarigiisa waxyaabaha baraha bulshada uu ku soo bandhigayo niyo wadanka dawladdu leeyahay aniga way ii timid wax baarisan ku marsiinayna ay tiri adigu baaris si ay marsiiyay kadib waxbaan ku weynaa liiri sidii ay u soo fasaxeen marka anu markii inta la soo fasaxay waxa dhaniyo aan barnaamijyada sameey jiray ma wadan karaayo mise waa iska dhaaftaa barnaamijyada wadan kartaa wixii adiga labada dhinac dhib aan ku geeneen oo maanta nin weynaa tahay talo u baahnide marka waa sameey kartaa ilaahen in badan xataa waxay marka ugu gowaabiyeen wax qurux badan dadkan oo soo bandhigo 7 bilood laba cishan xirna 2 biro ay raacday 7 bilood 2 biro xirna maxkamada soo taagay jirta niyo sideeda waxa jira waxay dad badan markay xirayeen oo baaris badan la marsiinayo waxa macquul dad ka horeeyo baaris marka waqti yani baaris la marsiinayo iska dheeraade Liibaan Maxamed Yaasiin oo ku magac dheer Baaquli Boy waxa sidoo kale hor dhigay waxa uu kala kulmo bulshada uu ku sameynayo barangiyada maadaama dadka ay ku sameynayaan ay dhici karto inay raali ka ahayn ama wax xilligaasi ay xanaaqsan yihiin jino warun inta lagu bartay iyo asxaabteeda inta lagu barto horta barankiskaas waaye waxay tahay horta qof socdo oo dayrato muddaxa waxa macquul xaalad inuu ku jiro aniga kama warqabo ama inuu iska faraxsan yahay inaad xaaladiisa ama aad bedesho dabciisa aad bedesho waxyaabaha qaar waa kala kulmi kartaa inta kale mid kale waxaan rabaa inaan xuso aniga waxaan sameeyo horta madadaala la yiraahdaa sideeda baraha bulshada inta badan waa wax iska dhalanteed waaye waxyaabo badan aan kala kulnaa almuhiim dadku waxaan dirnaa ayagoo raali ah TV-gooda marka fiidiyooga aan ka qaadanayno inaan YouTube ka aan dhigayno inay ku qanacsan yihiin ayagoo raali aan qaadanaa tusaale adigiino inaan fiidiyo aan ka qaato adoogan inta iska baxaysa dhow YouTube-ga ku aragtid aniga ma xoog badan 20 jir tahay Soomaano xuquuq leedahay bari way ugu dacweyn kartaa dalka dawladdu leeyahay marka bismillaah waa dhawahay magacaygu saddexan waa Bilaa Cabdi Maxamed Bilaa Alta niyo TikTok horta dhawaana soo galnay muddo ma isticmaali jirin inta YouTube-ka isticmaaleen ma isticmaali jirin marka TikTok hadda waxa iga qoran Bilaa Alta 22k haysta falo niyo way jirto wala barnaamijyada sameeynayna laakiin waxa kamid ah dalka Hindiya oo lagu toogtay nin saaxiibiye Bilal Bulshaawi oo wacad ku maray